kala duwana dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay degaan wanta mashadiyo dalka Soomaaliyeed ma kala duwana. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسل دمان داوداش قيمة شرفت له إذا أنتم بكسو دواد قيبتي أفراد برنامج كبر قبل دلكاغا وانا ما انت كسو قادونا تاريخ قبل كجدو حكوية على كونفورت الصوماليا قبل كاني وحوقني كوي هيدول بيريتكا وحانا مرة وبيغا تشوبا وكسو قالت إن عودنك إثيوبيا قبل كاني وحبد أهملهان أو وحو كميدي هاي قبل حيران أو إسبادو مرين إيه صوماليا قبل كاني مقالة مدحدي سوا قربهاري قبل كجدو wuxuu daris leeyahay gobolada dalka afar gobol oo kala ah gobolka Bakool, Baay, Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale gobolka Gedo waa gobol istiraatiiji ah oo wuxuu isku xiraa saddex wadan oo kala ah Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. dhinaca baaxadda gobolka Gedo wuxuu ka baaxad weyn yahay isku darka shan wadan oo kala ah Netherland, Belgium, Qatar, Singapore iyo waliba wadanka Hong Kong. isku darka shantaas wadan baaxadoodu waa 84,000 oo kiiloomitir halka baaxadda gobolka Gedo ay tahay 85,000 oo kiiloomitir. Gedo waa gobol cajiib ah oo tusaalaha ugu dhow Soomaaliya ka bixin kara. waana gobol baaxadiisa xog laga hayo. waa gobol webi aad u biyo badan oo dhex maro haddana ay ku badan yihiin baahiyaha nololeed iyo abaaruhu. wuxuu ka kooban yahay gobolkaani 7 degmo oo kala ah Luuqganaane, Beled Xaawo, Doolow, Ceelwaaq, Ceelcadde, Baardheere iyo Buurdhuubo. sidoo kale gobolkaani dadkii ka soo baxay ee baalka dahabka ka gala taariikhda Soomaaliya waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ahna madaxweynihii uu xilka dheeraa Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre iyo waliba madaxweynaha hadda xilka haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.